جاجلانها أي لو بيجي دبر بيجي تشوفه سوى نفسه ولا شيء وقعته أرينا ما نعرف أريد وسك حيسته فبدنا دعني أنا حبيت بيجي بفته أنا أرجو بالقرايان أنا في وحوين أمدو وكاسا أنا أرجو شو حبيت فساسا أرجو أنت جاي فأنا حبيت فين كذي كلها waxaan ka warramaynaa haweeneyda iyo meeygaagga dadkii joogay baan nahay oo dhaxasada ahaa ee ku noolaa dadkaasi markii iyagoo iska degan oo diraqdaasi haysa waxa soo galay beed kaare ciidan aan u kala harin oo ma garatay dadkaasi wax la laayay iyo wax la fiigay iyo wax arriba laga dhigay ariyow qahuurow waxba kama hayn oo ma garatay waxaana duwanaa u sheegayna inaan dadka waxba aan gacanta ka gaadhin oolo dad duuyo magaalada iyo baabadeena hadda aan meeshii iyadoo aan ugu nimid fiigaha yagi saasaan u sheegaynaa afartan baan jiraa waxaan ahay ninka naafada ah anigu waxaan ahaa dadkii deganaa meesha la yiraahdo Hagowgani oo halkii aan ku badhashay aniga laftaydu waxaad ogaanaysaan gumaadkii ama genocide-kii isirtirtirkii dagaalkii ku saabsanaa isirka xaggiisa ee dadka lagu masaxayay shaandhada nimanka Hargeysa iyo degan fargeetada ay wax ku xaalayaan fargeeto waxba ka tageysay may ahayn حتى أنا جو كليبا وحوها دتكي لقفاشي مدح فرشة لوك حيستيبان كم إذا شردل يردباتو يفعلهما وحي الله المجبتو وحي عدين كريسات هاسي أرحن در هذا ينحرس در هذا معناه أيوه يان دتكن أيوه يان أيوه سيدا دكتور هاي بداو عني وحول يقصو جاري سيدي وسيلان يوقو قبطي مامولك سوماليا كباي محي سومالي مامولك سوماليا كباي سيلان يو كرسيغا مارنتي وقتي اسنا وقبطي وحو بلابي عراق سوكيه iyo duulaan wuxuu nafiya maal bahayay wuxuu dul dhigay gobolka cayn markii uu dul dhigayna waxaanu ahayn dadka reer baadiyaha ee xoolo dhaqatada ee jiida hore ku jira deegaamadoodii anagoo degan mulka waxa ka dhacay abaaro baahsan oo aad iyo aad u lahaad leh waxa weeyaan abaaraha ka dhacay waxaanu dhurannaa laasas leeyahay shangalle dhaanku casarkii soo taga habeenkii waa guriga ku soo waabaristaa ama ku yimaada guure waxa weeyaan iyada oo dadkii waxna bariisanayaan wax dhaankii qaarkii aan ciidanka darararanayaan wixii ciidanka laana furanayaan baa ciidamadii iskiilayo nagu soo gaaseen markay nagu soo gaaseen naf iyo maaltoona nooma dhaafin waxaana la dulmariyay kaarayaal wax la yiri oo aanan aqoon qofkii naftaana ahaa ee haftoobay ee geed hoosta ka galayba kaarihi baa la dulmariyay caruurtii yaryarayd ee 5 bilood jirtay iyo hooyadooda kala hadfay oo 24 saac gudahood kala maqnaa waxa weeyaan kuwii 4 sano jiray baanu 24 saac weynay intay godad galeen nafla caarigi oo markii dambe aanu damacnay inaanu dhuuninana qaadan waayay dhuunigii kuwii 7 sano jiray baanaan hayn inuu iibsaday garan mayno inuu laayay garan mayno inay meel kale meedkoodina ma hayno raqdoodina ma hayno kuwii 9 sano jiray baa dhaawacmay waxa weeye marka aniga dhaawacaygu waxa weeyaan hooyaan ahaa markii aan arkay dadka sidoo beebaha ugu gelayay baan laba caruur labada gamcood ku kala qabtay labadii caruur ahaa buu yiri ka qabta cajuusada labada nin haysata laba caruur aan qaangaar ahayn deedna kursi dabadii labada gamcood lagu jabiyay marka halkaas ujeedada ugu soo markaa maxay waxaan ugu jeedaa degaankii baan watahay dadkii deegaanka ahaa markii dagaalku dhacay xagee ku sugnayd maxaad ay ku jirteen marxaladii bal xilligaas dagaalku dhacay soo qaxday wala warbixin hor guud naga sii waxaan idinka siinayaa dagaalka jiido deegaankayga baad markii hore waan ku jiray danaba uma aan dhaafay jiida meelaad la hoogane shangale ceelka la dhahdo oo aan biyaha ka dhurno saddex dhanaba uma aan dhaafay jiida markii hore deegaanka noo hayday waxa weeye reer miyiga iska guuray oo intiisa ku wareego marba balligiisa xoolaha daaqsada ayaan nahay ma garatay markii ugu horeysay ciidamadu ay noo yimaadeen mudayna dul joogeen muddo sidii ay noo dul joogeen markii hore anaga waxa warka ugu soo gaarsiiyeen ciidan beeleed baabaan ciidan beeleedkii sidii aan u haysanay waxaa nagu qabtay markii dambe weerarka waxa ugu soo horeeyay baalka yiraahdo beed iyo kaare labada
beebaha iyo kaaraha beebaha safar waanu arooraynay waanu guuraynay waanu daaqsanaynay geelaanu sii daynay adhigaanu sii daynay carruur yar baan maqashay kaare iyo beebe isku dabaqasayo beebihii horreeya unbaaba la soo dhigay waxay ku noqday geela xabadihii way qaateen carruurtiina waa fiigta waa kala qaaday maqashina ilaa iyo aanadan maba hayno ma jigaaro bare geelina iyagii waaba qalqashay wixii ay xabadihii u jebiyeen waxay u dhaceen aan ku sugnaa meeshii la meeyaagla ayaan anigu ku sugnaa deegaankayguna ahaa halkaasaana dad maata ah oo waxa weeye ayaan la joogay reerkaygii halkaasuu deganaa carruurteedii iyo reerkii halkaasaan ilaahay usiyaan ku xijiray waxa weeye annagoo iska degan oo ilaahay halkaa ku barin oo ilaahay nagu ogyahay ayaa ciidamada SNM ee Siilaayo xukumo ayaa lagu soo weeraray kabacdi markay soo weerareen waxaa dhacday waxa laale wixii hanti aanu haysanay iyo wixii aan xoolo haysanay inay banna qashaan banna ay diyaan banna baalku BM-ka markay nala dhaceen inay didaan arigiina dido geelina dido waa tahay markaasi xoolihii iyo dadkii magaaladaasi oo degmo ah fiican ku dhaqan xaaladoodu say noqotay hadda maxay ku sugan yihiin hadda waxay ku sugan yihiin haddeerto iyo markii hore laba isku mid maaha haddeerto markii hore waxa weeye de suxman looga soo xulno reerkaygii ma hayo carruurtaydii ma hayo si allaale si aan yeelana garan maayo waxa allaale wixii aan xoolo haystay banna way qasheen banna arigina wuu diday meel allaale meel carruurtaydii labaana hayn uu dhintay midna nimanka maxaabiista hay-adaha caalamku ay ka soo daayeen ee awal hore qabsadeen ayaa la soo raaciyay oo kaasaan anoo doonayo aan awal hore waayay yaa mid laga hela hay-adaha caalamka adduunyada waxaan ugu baaqayaa ninka dhiigyacabka Axmed Maxamed Siilaayo inuu dadka ay ka qabtaan waxa allaale waxa hay-adaha ee soonfalka siinaya wuxuu lagu leenayaa oo wixii adduunka caalamka ay caawida loo siiyay weeyaan adduunka waxaan ku codsanaynaa ninka dhiigyacabka ee argoosiga meel allaale meelaan wax ku yeelay aanan garanayn lagu soo weeraray suuga iyo beebaha iyo BM-ka adduunyada waxaan ku codsanaynaa ninkaas inay indha u yeeshaan si caalamiya oo degdegana wax uga qabtaan taasaan ku codsanaynaa adduunyada waxa aan doonayaa inaan ka hadlo maatada aad arkaysaan halkaa joogta iyo carruurta iyo waxa ku dhacay iyo waxa uu yahay waxa ku sameeyay maatadaasi waa laydinka warramay u noqon maayo maalkoodii iyo guryahoodii iyo maxaysatadoodii iyo meeshay deganaayeen bay ka soo baxeen dadkanina waa soo dhaweeyeen oo halkan ay ku soo dhaweeyeen oo buuhooda waa soo dhaweeyeen iyo Itoobiya inay deganayd meesha waxaan anigu taa ku noqon maayo waxa aan raacinayaa anigu ninka la yidhaahdo waa madaxweyne uma aqaane waxaan u aqaan maatalaayaan u aqaan midna waxaan u sheegaa wuxuu dadka ku laynayaa reer buuhoodlow khasab igu raaca reer buuhoodla wuu diiday khasab inuu ku raaco mana ogola inuu raaco mana ogolaan doono waxa weeye reer daraawiisheed baanu nahay SNC daacadaanu nahay esir waxaan nahay Puntland daadeedna Soomaali weyn ma raacayno mana ogolin waxa aan leenahay oo caalamka u sheegaynaa sidii ninkii hore yiri maatada waxa lagu laayay guryahoodii lagaga saaray lagu qaxiyay ina ay tahay hadda qurumaha ka dhaxaysa iyo hay'adaha xoolaha u keenan ninka waa wax la ogaaday waxaanu codsanaynaa in hay'adahaas lagu caawiyo ninka laga joojiyo iyada oo loo eegayo maatada maalin walba aad arkaysaan ee halka uu beebaha iyo BM-ka ku laayay ee maalkoodii qalqashay ee xoolahoodii kaxaysay ee carruurtoodii laayay sideed jirka laayay daawacoodii halka aad arkaysaan daawicii kale dhakhtarka yaalla ee dumarka hayaala kii kale iyagoo ay hayaan ee daawicii dumarka ay hayaan waxa aan ka codsanaynaa inay hay'adaha wax ku soo caawiya ayna u keenin oo ay arkaan dadka xaq baan ku hadlaynaa raacina mayno gardarrana ku raaci mayno garna ku raaci mayno laakiin dad waxaanu nahay dagaankoodu siman yahay oo ayaga waa ogol lahay inay dagaankooda joogaan annagana inay kayaga noo ogolaadaan
بان عصنين أمان عن نجهل أنا أمان كهل لكن ما قصركم الراعينه ما أنا أقولين قبل إيش ما أقوله حاران تاها كنت شمين هذا هو السلام